assalaamu calaykum. Way dhacdaa in aad murugooto, duruufo ayaa ku soo wajahayo, balse ma aha noloshaada inta ka dhiman inaad ku noolaato nolol mugdi ah. Waa wax caadi ah nolosha in akoon bangigaaga uu eber noqdo ama aad gaajooto. Waxaa lagaaga baahan yahay in aadan isdhiibin. Shaqee walaal, wax un qabo, dadaalaa wuu gaaraa. Isku day in aad xakamayso waxa aad awoodo inaad qabato walaal. Naftaada ka ilaali murugada. Mustaqbalka waxa dhici doona annaga ma xukunno. Waxaa lagaaga baahan yahay niyad wanaagsan inaad la timaado. Waad ku riyoon kartaa inaad wax qabsato, waana macquul in riyooyinkaas ay kuu rumoobaan. Waa haddii ay adigu kaa go'an tahay inaad isbeddelo suubiso walaal. Ma ahan in aad isciisho, ma ahan inaad kelinimo dareento. Ismashquuli walaal, shaqee, wax qabso. Maskax ayuu eebba ku siiyey. Ma ahan inaad isdaciifiso, ma ahan noloshaada in aad mugdi geliso. Waad u qalantaa nolosha aad rajeynayso inaad ku noolaato. Waxyaabaha ugu badan oo ka dhigaya qofka in uusan horumar gaarin waxaa ka mid a in aad cabsato, in aad walaacdo, in aad dareento kalsooni darro, in aad ka fakirto mustaqbalka waxa dhici doona. Iska ilaali walaal arrimahaas oo dhan haddii aad rabtid inaad ku noolaato nolol qurxoon. Horumari noloshaada maalin walba. Noqo qof dabeecad wanaagsan. Tani waxay kuu sahlaysaa inaad ku la noolaato bulsho kala duwan oo ay fursaduhu ka buuxaan. In aad meel iska fadhido ma ahan. Waqtigaada waa muhiim walaal. Waqtiga iyo waayaha qurxoon dadaal bay kaa rabaan. Haddii meesha aad ka shaqaynayso aadan jeclayn iskaga tag. Haddii buugga aad akhrinayso uu ku caajis gelinayo iska daa akhrintiisa. Haddii waddada aad ku socoto ay qaldan tahay, beddel jihada aad u socoto, waayo adigu ma tihid geed meesha laga muday. Ilaahay wuxuu ku siiyey aqli iyo maskax aad wax ku fahmi karto, isbeddelna aad ku suubin karto. Laakiin in badan oo inaga mid ah waxaa noqonay sidii geed qalalay oo caleemo soo bixinaynin. Waxaan niyadda ka dhaadhicinay in aan waxba qabsan karin. Waan rajo dhignay. Walaal, wax waad qabsan kartaa. Xoog, maskax iyo garad buu alla ku siiyey. Noloshaada waa muhiim. Waad is anfixi kartaa. Waa haddii aad niyaddaada ka saarto fikradaha xunxun oo ah in aad waxba qabsani karin. Ku dheh nafsadaada, waan awoodaa, wax walba waa macquul. Iska saar nolosha xabsiga ah aad ku jirto. Fikradaada waa muhiim. Fakir, maskaxdaada ka shaqaysii. Adigaa u qalma inaad ku noolaato nolol sacaado leh. Ku tamashalee baraariyo nolol qurxoon. Buugaagta aad akhriso, qolka aad seexato, dabeecadda aad ku bilowdo maalintaada, asxaabta aad la sheekaysato, waxa aad qabato iyo waxa aad cunto intaba waxay go'aaminayaan qofka aad noqon doonto mustaqbalka. Walaal, isku day in aadan farxadaada ku xirin shaqsi ama shay kale. Xikmad ayaa odhanaysa 100 sano oo sidii bisadii aad u noolaato waxaa ka wanaagsan hal maalin oo sidii libaaxi aad u noolaato. Mahadsanidin.